haddaan tusaale u soo qaadanno abaartii arbaca kombaaley 4 konton 6 khamiis 43 marka laysu geeyo 53 waa 93 sano. markaasaa waxaa lagu daraa jimco 1 sabti 2 axad 3 tiradaasi waxay isku noqonaysaa 96 sano oo gow ah. tani waa markhaatimo doonto in amintirisku yahay mid si habsan u shaqeeya dhaqangalna ah loona adeegsan karo si sahlan. sidaan ku soo aragnay qaybtii koowaad ee muuqaalkii amintiriska ama kaltiriska Soomaalida oo ahaa kalendar u gaar ah Soomaalidii hore kaa oo ahaa mid shaqaynayay muddo ka badan 2500 oo sano bannaankana kula dhacay inuu ka mid yahay kalendaradii adduunka ugu horreeyey ilaa iyo maantadan la joogana shaqeeyo. waxaa hubanti ah in caqlibadnidii awoowayaasheen iyo dadaalkoodii ay ku timid inaan dhaxalno kalendar dheelitiran una shaqeeyo qaab ka duwan kalendarada caalamka badankood. marka waxaa habboon marka koowaad inaanan luminin dhaxalkeenna, tan labaadna inaan u gudbino jiilasha mustaqbalka iyo inaan ku faanno aqoontii ay u lahaayeen awoowayaasheen cilmiga xilliyada. haddaan u soo noqonno kaltiriskan iyo sida uu u shaqeeyo waataan qaybtii koowaad uga soo hadalnay in 7 sanaba uu mar soo cusboonaado, micnaheeduna yahay inuu yahay mid ku socdo giraan oo aan ahayn mid xiriirsan ama taxana ah. waxaa la isweydiin karaa bacdamaa astaanta sanadka aysan ahayn tiro sida 1920kii 1921kii 1922kii ee ay tahay magac ayaan ka mid ah ayaamaha toddobaadka. markay 7 sano dhaaftana uu soo noqdo magaca ayaanka aan hore u soo aragnay, taa oo keenta in la kala garan waayo markaan ka hadlayno sanad axad ah in axadu tahay mid ahayd 7 sano ka hor iyo mid 15 sano ka hor ahayd. laakiin Soomaalidu si xeeladaysan oo aad ka garan karto qoto dheerida caqligooda ayay u xalliyeen caqabadda. tusaale ahaan, nin dhallinyaro ah markuu ku weydiiyo waxaan jiraa 17 sano ee muxuu ahaa sanadkan dhashay, waxaa loo xisaabaa sidan. sanadka markaa la joogo hadduu yahay tusaale ahaan isniin, tirada waxaad ka bilaabaysaa sanadkaa la joogo isniinka isniin waa 15 sano iyo 2 sano oo ka horreeyey oo ahaa axad iyo sabti. markaa wiilkan waxa uu dhashay sanad sabti ah, markaa waa sabti ka sabti 15, axad 16, isniin oo ah sanadka la joogo 17. sidaa ayaana lagu gartaa sanadka uu dhashay ninka. dhanka kale haddii la rabo in la ogaado nin dhashay sano jimco ah 40 sano ka hor, sanadka la joogana yahay axad, waxaa loo tiriyaa sidan: 6 jimco waa 43 sano, sabti 44, axad oo ah sanadka la joogo 45. sidaasaana lagu gartaa in uu 45 jir yahay. waxaa jira sannado caan noqday sababta oo ah dhacdooyin waaweyn oo saamayn reeba sida abaaro, daadad, dagaallo iyo wixii mid ah ay dhaceen. taas ayaana sannadaha waxay ka dhigtaa kuwa la bartilmaameedsado oo marka la rabo in la tiriyo ama la rabo in la ogaado waqti dhalasho, dhimasho, heshiis la galay sida kirayn beer iyo wixii la mid ah. haddaan tusaale u soo qaadanno abaartii arbaca kombaaley, jimca baastaaley, abaartii dabadheer iyo khamiistii ay dagaaladii ahliga ahaa ka dhaceen Soomaaliya. haddaan ka soo qaadanno arbaca kombaaley iyo khamiistii ku xigtay, waxaa dhacay abaaro saamayn weyn ku yeeshay Soomaalida sanadku markuu ahaa 1927 iyo 1928. marka haddii aan rabno inaan xisaabno inta sano ee ka soo wareegay dhacdada waa sidan. haddaan ku horeyno taariikhda miilaadiga sanadka 2023 waxaa ka soo wareegay 96 sano. markase aan u imaano kaltiriska dabshidka, tirintiisa waxay noqonaysaa sidan: 4 konton 6 khamiis 43 marka laysu geeyo 53 waa 93 sano. markaasaa waxaa lagu daraa jimco 1 sabti 2 axad 3 tiradaasi waxay isku noqonaysaa 96 sano oo gow ah. tani waa markhaatimo doonto in amintirisku yahay mid si habsan u shaqeeya dhaqangalna ah
loona adeegsan karo si sahlan. tusaale labaad haddaan soo qaadanno, waxaa jira sannad aad caan uga ah koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Banaadir, oo loo yaqaano Axad Shiiki, oo ahaa sannadkii la dilay Antonio Sheki iyo 14 sarkaal oo Talyaani ahaa oo ay ku jiraan 2 taliye markab. dagaalka oo la foole ka dhacay oo ay Soomaalidu u arkeen inuu ahaa guul weyn oo u soo hoyatay iyo dharbaaxa libaax oo ku dhacday gumaystaha, wuxuuna dhacay sannadkii 1896. sannadkan wuu ka horreeyey Arbaca Koombaaley, laakiin waxa aan tusaalaha labaad uga dhignay Arbaca Koombaaley waa sannad Soomaalida ay aad u taqaan meel kastoo ay joogto. sannadka Axad Shiiki waxa uu ahaa sannad axad ah sida magaciisa ku cad, waxaana 2023 ka soo wareegay 127 sano. haddaan ku tirino amintiriska dabshidka wuxuu noqonayaa sidan: axad ka axad 50, isniin ka isniin 50, isugeyntoodu waa 100, 3 talaado waa 22 sano. markaasaa waxaa lagu daraa Arbaco oo 1 ah, Khamiis oo 2 ah, Jimco oo 3 ah, Sabti oo 4 ah iyo Axad oo 5 ah. marka la isu geeyana waa 127. tusaalaha saddexaad waxaan ka dhigan karnaa sannadka 1960 oo ahaa sannadkii xorriyadda. sannadkaasi waxa uu ahaa sannad isniin ah, sida la og yahayna waxaa ka soo wareegay 63 sano. kaltiriska dabshidkana waxaa loogu tiriyaa sidan: isniin ka isniin 50, 2 talaado 8, isugeyntoodu waa 58 sano. markaas ayaa waxaa lagu kordhiyaa Arbaco oo 1 ah, Khamiis oo 2 ah, Jimco oo 3 ah, Sabti oo 4 ah iyo Axad oo ah sannadka 2023, waxayna isku noqonayaan 63 sano. haddaan sii wadno tusaalayaasheenna, tusaalaha saddexaad waxaan u soo qaadan karnaa sannad sidoo kale aad looga yaqaan geyiga Soomaalida oo ah sannadkii dagaaladii sokeeye ee 1991. markaan ku bilowno kalendarka miilaadiga ama kan gaalada sida Soomaalidu u yaqaanaan, waxaa ka soo wareegay 32 sano. kaltiriska dabshidka waxaa loogu tiriyaa sidan: sannadkaasi waxa uu ahaa sannad khamiis ah, 4 khamiis waxay keentaa 29 sano. Jimco marka lagu daro 1, Sabti 2, Axad oo ah sannadka 2023 waxay isku noqonayaan 32 sano. habtirsiimada waxay caddaynaysaa in kaltiriska Soomaalidu yahay mid dhaqangal ah, waase hadday ummadda leh rabaan inay nooleeyaan dhaxalkooda kuna faanaan. muuqaalkan kadib, daawadaha waxaa u fududaan doono in uu ogaado sannadka uu dhashay ee kalendarka dabshidka. haddayse kula noqoto inaad ogaato sannadka aad dhalatay, nagula wadaag kommentiga adoo soo qorayo 2 kalendar miilaadiga iyo dabshidka. halkaana waxaan ku joojinaynaa qaybtii labaad ee kaltiriska ama kalendarka dabshidka ee Soomaalida.